munaasabadan oo maanta ka dhacday gudaha degmada magaalada Muqdisho waxaa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada ku-xigeenka safiirka dawladda Turkiga u fadhiya dalka Soomaaliya maareeyaha degmada Muqdisho iyo marti sharaf kale ayaa ujeedadeedu ahayd mid ay xukuumadda Soomaaliya ay howlaha degmada Muqdisho ay ku wareejinaysay shirkadda Albeer oo ah shirkad ganacsi oo laga leeyahay dalka Turkiga. Cabdullaahi Cali Nuur maareeyaha degmada magaalada Muqdisho ayaa munaasabadaasi ka sheegay in shirkadan cusub ee lagu wareejinayo howlaha degmada Muqdisho ay isbedel dhinaca ganacsiga ka sameyn doonto degmada Muqdisho. balse waxaan idin sheegaynaa alxamdulillah maanta ay bishu tahay 22 bishii sagaalaad ee sanadkan 2014 in degmada Muqdisho in muddo soo shaqeynaysay heerna gaarsiisay wadanka ayadoo kaashanayso ganacsatada sharafka leh iyo shaqaale weynaheeda iyo maamulka guud ee qaranka Soomaaliyeed maanta waxaan diyaar u nahay inay degmada Muqdisho ka sii ambaqaado meeshii ay rabtay ay u socotay si ay u gaarsiiso horumar guud wadanka Soomaaliya sidaan la socono dekeduhu waa meelaha ay ka abuurmaan ama ka laga kobciyo dhaqaale wadan u leeyahay haday ahaan lahayd wax soo saarka wadanka oo noocyadiisa kala gudsan meeshii laga dhoofi lahayd iyo wax allaale wixii ay Soomaalidu dibadda ka keensanad ganacsan ahaan. Axmed Sami oo ah madaxa shirkadda Albeer oo iyadu laga leeyahay dalka Turkiga isla markaana lagu wareejiyay howlaha degmada magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday in shirkadan ay la imaan doonto isbedel dhinaca horumarka ganacsiga ah. Bugün burada siz değerli misafirlerimizin teşrifleriyle Mogadishu limanının işletme hakkının devri için toplanmış bulunmaktayız. Maanta waxaa halkan ugu kulannay shirki oo la wareegay degmada Muqdisho. Müslüman ve kardeş iki ülkenin birlikteliği yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Qoraal sano ka hor ee labada dawladood dad walaalo ay ahaayeen dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliya. 3 yıl önce Somali'de yaşanan büyük kuraklık ile iki devletin yeniden kucaklaşmasına vesile olmuştur. 3 sano ka hor markii Soomaaliya ku dhacday masiibadii abaartii dawladda Turkiga ay u soo buugatay ka hor wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Yusuf Macalin Amiin ayaa ku dhawaaqay in xukuumadda Soomaaliya ay howlaha degmada magaalada Muqdisho ku wareejisay shirkadda Albeer oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga. waxaan jeclahay in ganacsigoodan halka ay ka sii wataan ay noqoto mid ay gacanta isqabsadaan shirkadan maanta ayna dawladdu ay mataqaana gacan ku siiso ay la wadaan runaantii marka dib u fiiriso adduunyadu isbedel kasta dhaca isbedelka wuxuu leeyahay xanuun ha fiicnaado ha xumaado bedelkaasi wuxuu keenayaa xanuun ayuu keenayaa bini aadanka naftiisa wuxuu u egyahay isbedel inuu diido mar walbaba inuu ka hor yimaado ayuu bini aadanku leeyahay sidiisaba marka sidaa darteed waxaan jecelnahay niyadiin inaad furtaan isbedelkan dhibaato keeni maayo isbedelkan dekada dhibaato keeni maayo insha Allah dhibaato keeni maayo marka waxaan rabnaa isbedelkaas in la qaato oo aad nagala shaqeysaan oo aad horgashaan sidii idinku markii hore u maalgeliseen wadankan aad u maalgelisaan aad socotaan marka waxaan jecelahay inaan hadalkayga uga baxo oo aan soo dhaweeyo shirkadda Albeer in maanta laga bilaabo maamulkii dekada aan ku wareejinay waana mahadsantiin. Gigada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdullaahi Cusmaan Aadan Cadde iyo degmada Muqdisho oo labaduba ah ilaha ugu badan ee dhaqaalaha ay ka soo galaan dawladda Soomaaliya ayaa waxaa hadda maamula shirkado ganacsi oo ajaanib ah taas ayaana keentay in muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed ay dhaliilaan qaabka ay shirkadahaasi u shaqeeyaan. أويس محمود جلعو رويال تي في مقدشو.